السلام عليكم أصحابتا كسو دوادا مركلة iyo barnaamijyadeena caafimaadka oo aan kaga soo gudbino bogeenan bukaan deeq clinic muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa mid kamid ah qataraha caafimaad xumo ee la soo dirsa hooyada uurka leh gaar ahaan waxaan ka hadli doonaa dhiig-yarida xilliga uurka iyo ama anemiyada xilliga uurka waxaad isku arki kartaa dhiig-yari marka ay dhiig-yaridu kula soo diristo jirkaagu ma haysto unugyada dhiigga cas oo ku filan si ay u qaadaan oksijiinka jirkaagu u baahan yahay iyo kan ilmahaagu u baahan yihiin xilliga uurka jirkaagu waxa uu soo saaraa dhiig aad u fara badan si loogu caawiyo koriimada ilmaha uurka ku abuurmay dhiiguna waxa uu qaadaa oksijiinka looga baahan yahay koriimada xubnaha uurku jiraha haddii markaa jirkaaga ay ku yar tahay ironka iyo waxyaabaha kale ee jirkaaga nafaqada u leh ma awoodo jirkaagu inuu soo saaro unugyada dhiigga cas oo ku filan koriimada uurku jiraha markaa waa in aad heshaa bedel kale dhiig-yaridu waxa ay ka dhigtaa qof daalan oo aad u daciif ah haddii ay sii darsato dhiig-yaridu oo aan la daweynin waxay kugu keeni kartaa khatar caafimaad xumo oo ku gaarsiiya in aad dhiciso ama aad miir daboolanto noocyada dhiig-yarida xilliga uurka 1 dhiig-yari ay sababto ironta jirkaaga oo yaraata 2 dhiig-yarida maadada folate-ka oo jirkaaga ku yaraata 3 dhiig-yari ka timaada fitamiinka 12 vitamin B12 oo jirkaaga ku yaraada dhiig-yarida ironka waxa ay dhacdaa marka jirkaagu uusan haysan iron ku filan si uu u soo saaro maadada hemoglobin waa borotiin dhiigga cas laga helo hemoglobin waxa uu ka qaadaa oksijiinka sanbabada si uu u gaarsiiyo qaybaha kala duwan ee jirka oo idil dhiig-yarida ironka waa dhiig-yarida ugu badan ee lala kulmo xilliga uurka dhiig-yarida folate-ka waa nooc kamid ah vitamin B waxa laga helaa qaybo kamid ah raashinka qudaarta cagaaran iyo miraha xilliga uurka jirkaagu waxa uu u baahan yahay folate si uu u soo saaro unugyo cusub oo dhiig ah marka waxa ay u baahan tahay hooyada uurka leh folate dheeraad ah oo waxa dhacda inay dabooli weyso baahidii jirkeeda folate-ka ay ka helayso raashinka jirkeeduna soo saari waayo dhiig cas oo ku filan qaadista oksijiinka haddii xaaladaas ay dhacdo waxa la siiyaa hooyada uurka leh nooc la sameeyo oo lagu magacaabo folic acid kaas oo u dhigma folate-ka jirka u baahnaa dhiig-yarida folate-ka waxay ku keentaa ilmaha uurka ku jira dhamaystirnaan la'aan ku timaada kalxangulaha oo lagu magacaabo spinal bifida waxa uu noqon karaa ilmaha paralyze waxa kale oo ay keeni kartaa ilmaha oo ku dhasha miisaan yari dhiig-yarida ay sababto ama uu sababo fitamiinka 12aad ee vitamin B12 deficiency-ga waa nooc kale oo qayb ka qaata soo saarista unugyada dhiigga cas ee oksijiinka qaada oo caafimaad qaba waxa laga helaa cunista hilibka digaaga iyo waxyaabaha borotiinka leh haddii xilliga uurka ay hooyadu ku dhiban tahay qaadashada raashinka waxaa la soo gudboonaan karta khataro uga yimaada dhiig-yari oo sababo fitamiinka 12aad weynta fitamiinkan waxay sababi kartaa neerfaha dabaqanaanta oo aan xirmin iyo ilmaha oo aan bila dhameysan dumarka khatarta ugu jira dhiig-yarida xilliga uurka hooyada mataanaha sida uureyda waqtigeeda aadka uu isugu dhow yahay oo mar walba uurka qaada xilliyo isu dhow gabadha mataga badan xilliga walaca midda aan cunin raashinka laga helo ironka midda uurkeedii hore la kulantay dhiig-yari calaamadaha lagu garto dhiig-yarida maqaarka faruuryaha iyo isha oo cadaada daal iyo tabar darri madax wareer wadna garaac aad u fara badan neefta oo ku adkaata qofka dhibaatooyinka dhiig-yaridu ay dhaxal siiso hooyada uurka leh uurku jiraha oo aan bila dhameysan dhiig ku shubid oo ay u baahato hooyada uurka leh dhalmada kadib oo ay isku buuqdo hooyada uurku jiraha oo dhiig-yari ku dhasha ilmaha oo dhalashada kadib aan garaadkiisu kobcin miisaan yari oo ilmuhu ku dhashaan kalxangulaha oo aan u xirmin dhalmada kadib ilmaha baarista dhiig-yarida waxa lagu ogaan karaa baaris fudud oo lagu sameeyo dhiigga hooyada uurka leh waxa la baaraa hemoglobin iyo hematocrit oo laga ogaado dhiigga inta kadib jawaabta soo baxda ayaa cadeysa dhiig-yarida hooyada uurka leh daweynta dhiig-yarida hooyada uurka leh haddii hooyada uurka leh ay ku dhacdo dhiig-yari waxa ay qaadan doontaa iron iyo folic acid
ay afka ka qaadan doonto si looga hortago meeshana looga saaro khataraha soo wajahi kara haddii ay ku sii raagto dhiigyarida. Takhtarku waxa uu faraa hooyada uurka leh ee dhiigyaridu ay ku dhacday inay isticmaasho khudaarta cagaaran, ukunta iyo beerka. Haddii xaaladaha hooyada dhiigyaridu ku dhacday ay aad u liidato, waxa uu wareejin karaa dhakhtarka haweenku takhtarka ku takhasusay cudurrada dhiigga si uu caawimaad fiican u siiyo hooyada xaaladda adag la soo diristay. Sidee looga hortagi karaa dhiigyarida xilliga uurka? Dhiigyarida waxay uga hortagi kartaa hooyada uurka leh qaadashada hilibka gaduudan sida kalluunka iyo digaaga, qaadashada khudaarta cagaaran guud ahaan, qaadashada raashinka qolofta leh, cunista ukunta iyo beerka.